dhulka oo shirka jaraa'id soo dhaweeyay go'aanka uu qaatay Jeneraal Xuud si loo soo afjaray xiisadii bilay la soo dhaafay halkaasi ka jirtay ayaa sheegay in arrintaasi guul u tahay dowladda federaalka. Jeneraal Biix oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in beledweyne uu u tagay sidii xal looga gaari lahaa arrinta Hirshabelle qaraarka iyo sidoo kale diidmada Jeneraal Xuud oo ku tilmaamay mid haddii haatan la xaliyo guul oo arrinta dalka. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo haatan Hirshabelle uu markaasi gudagalayo doorashada golaha shacabka kuraas kamida waxa lagu qabanayaa beledweyne. Si kastaba xiisadan ayaa waxay qaboojin kartaa qorshihii mucaaradku ay doonayeen in Cali Guudlaawe looga hor istaago xarunta gobolka Hiiraan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka shaqeeyay in la kala furfuro xiisadda Hiiraan isagoo la hadlay dhinacyada qusaydo wuxuuna kala hadlay xal u helidda dejinta xiisadda iyo sidoo kale qorshe wada jira in lagu wajaho hanaanka Hirshabelle si loo helo nabadgelyo buuxda oo dadka deegaanka ay si weyn ugu nasan karaan. ila wareedyo muhiimka oo gobolka ayaa sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen in xilligan la gaaray xilligii wax laga qaban lahaa caqabadaha jira isla markaana loo gudbi